sidee loo isticmaalaa appkan la yiraahdo X Recorder. Markaad doonayso inaad soo gudbiso ama aad doonayso inaad asxaabtaada la wadaagto waxyaabo fara badan oo ka mid ah wixii aad isleedahay asxaabtaada waa ku dhaantahay bal la wadaag. Appka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo in lagu soo gudbiyo waa appkan loo yaqaano X Recorder. Si aad u jeedaanbo appkani horta waa kana astaan ahaantiisu waa noocan isla appka isla waqtigan waxaa adeegsanayo waa isla asiga screen recorder ama X Recorder ayaa la yiraahdaa. Marka ku dhufto wuxuu leeyahay function fara badan oo ay ka mid yihiin resolutionska. Waxaad imaanaysaa meesha setting wuxuu leeyahay resolutionkiisu waa resolution aad u sareeyo quality video high low normal hadba waxaad rabto frame-ka ama frame per second kan wuxuu leeyahay ilaa 60 frame per second iyo 30 frame per second. Sidoo kale waxaad dooran kartaa muuqaalka qaabka uu duubayo qaab waxaan u duubaa oo portrait ah oo dhirir ama qaab landscape ama u duuba oo jiif ah. Sidoo kale waxaan dooran kartaa aniga cod maan ku duubaa mise muuqaal kaliya aan duubaa oo ka asigana xagga loo record on ayaa dhax kartaa. Sidoo kale waxyaabo fara badan ayuu leeyahay. Waxaad dhihi kartaa hide record window during recording badanaa markii la sameynayo waxyaabaha ama duubista ama screen recording markii la sameynayo mobilka geeskiisa waxaa ku soo baxdaa calaamadda oo duubitaanka oo ah in aad wax duubeysid calaamadda muujinaysa. Laakiin appkani waad iska qarin kartaa calaamaddaas adigoo meeshaas ka dhiganaya on. Sidoo kale wuxuu leeyahay countdown before start. Imisa ayaa lagu tirinayaa inta aadan bilaabin duubitaankaaga 5 second 3 second hadba waxaad rabto. Recording mode qaabkee lagu duubayo performance maarta ama normal. Sidoo kale wuxuu leeyahay meeshaan hadii aad ujeedo screenshot suu leeyahay screenshot ayaa ka qaadi kartaa hadba meesha marayso. Sidoo kale wuxuu leeyahay camera on ayaa dhax kartaa hadda anaga furno noo soo baxaysa kaamirada bas waa iska xireynaa. Sidoo kale wuxuu leeyahay brush waa mid aan hadda adeegsanayo oo halkaan idin kaga muuqda waxyaabaha ku tirtiri karto waxyaabaha ku tilmaami karto. Waa app aad iyo aad u sareeya waxaa leeyahay qof walbo hayo macluumaad dheeri ah oo aan ardayda kale aysan ogeyn fadlan appkan.